waxaynu la dagaalamayna afkaar la soo waariday waxaynu hadad muslim ah sunni ah oo aan shiica ahayn madhabta shaafiiciyada haysta aqeedada ashcariyada haysta haddana waxaynu la bariisanay dagaal maskixiyan ah ama fikri ah oo laga soo waariday Asia iyo wadamada Carabta wadaad saari Pakistan xiran wadaad khamiis looga hoostiisa la joojiye xiran waxaynaan dhaqan iyo taariikh u lahayn waxaynu la soo halganay oo aynu ku soo naaloonay ahlu sufada iyo wadaadkii tusbaxa madow ee 99 ah rogi jiray oo nabadgeliyo iyo noolaansho aynu ku soo moodnay wadaadada kale ee khayrka qaba ee aqoonta casriga ah leh waa soo dhaweynayna ee nabadda ka shaqeeya laakiin wadaadka fikradda khaldan iyo diinta turjumida khaldan ka bixinaya waa ka aynu la dagaalamayna maanta oo leenahay maya islaamnimada saxda ah taama aha islaamnimada saxda ah waxa weeye ta culimadeena amniga jecel ee nabadda jecel ay fikirka saxda ah ka turjumayaan marka amniga maanta rabna in aynu sugnaa ma aha amni dagaalkii ciidamada qalabka sida dal shisheeye oo aynu ka baqanayno inuu inagu soo duulo ay difaacayeen ee waa dagaal aynu kula jirno fikri oo xagga fikirka ah una baahanahay inaan aragtida saxda iyo taamaah waa tan waligeeye islaam baanu ahayn maanta islaam noqon mayno muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa ka goyn dhiman mayno waanu noolaanaynaa qofkii ilaahay idinku sababaya waa dhiman doonaa laakiin Soomaaliya dhamaan mayso Soomaaliya way jiri doontaa way jirtay way joogtaa wayna joogi